halkan waxaa kasii socda qaybtii labaad ee sida gmailka loogu sameeyo website-kaaga waxaad loo samaysanaya email oo website-kaaga ah laakiin ay martigeliye u tahay gmailka ama google mail marka fadlan daawo intaadan qaybtan daawan qaybta ka horeysa ee koowaad daawo marka hore waatana qaybtii labaad marka waxaa leedahay next haddaad isticmaalaysa kalandarka weeye waxaa leedahay next google docs haddaad isticmaalaysid weye kaasina waxaa leedahay next haddaad isticmaashid android ama iphone next kuwan waxyaaba xayeysiisa weeye waa ka gudbaynaa next waa ka gudbaynaa waxaasoo dhan ilaa aan gaarno meel uu inoo soo qorayo hambalyo bartaas markaa gaartid waxa waxaa ku guulaysatay badanaa qaybtii koowaad ee gmailka inaad ku rakibtid websitekaagii aad qaybtii u horeysa weeye ma garatay markaa ku noqo dashboardkii waxaa diyaar ku ah markaas websiteki diyaar buu ku yahay ma garatay waxaa dhici karta qaabkaan isticmaalay wuxuu ahaa serverkaan isticmaalay wax toos u fahmayaa googleka laakiin waxaa dhici karta inuu serverkaaga uusan fahmin markiiba fahmin hore ka fahmin waxaa maraysaa marka tallaabo ah inaad qaadid tallaabadan qaadaysaa marka haddii uu isfahmi waayaan hore iska fahmi waayaan wuxuu ku soo qori lahaa shaashad buu ku soo qori lahaa oo ku leeyahay waxaad qortaa waxa loo yaqaano ms record msk waxaa laga soo gaabiyey mail exchanger record waa qaabka ama nidaamka suurtagal ka dhigaya in serverku uu aqbalo dhambaalka emailada marka haddaba waxa googleku uu ku soo qorayaa shaashad noocan uu ku soo qori lahaa haddii ayn isfahmayn labada macnaa serverka iyo googleka ayn isfahmayn taas ku soo qori lahaa marka kuwan marka meesha waxa lagu qorayaa waxaad gelaysaa c panelkaa gelaysaa ama websitekaaga qaybta guud ee laga hago baad gelaysaa oo loo yaqaano c panelka markaa geshid shaashadda guud ee c panelka waxaad eegaysaa meesha ku qoran tahay mail ama emailka ma garatay kadibna waxaad fiirinaysaa barta ay ku qoran tahay mx entry waa m iyo x bartaasaad riixaysaa marka bartaa riixdid waxaa kusoo baxaysa markaa shaashadda waxaa ku qoraysaa marka calaamadihian arkaynay oo ahaa kuwan soo ma jeedo kow waxa weeyaan waa priority waxaa ku beegan mail serverkaasaa ku beegan halka waxaa ku qoran priorityga 5 kanaa ku beegan halka waxaa ku qoran 5 kale kaasaa ku beegan halka waxaa ku qoran 10 kanaa ku beegan halka waxaa ku qoran 10 kanaa ku beegan marka waxaa ku qoraysaa calaamadahaas meeshan kan number oo diiwaan ama waxunbaa iskaga qoranaysaa magacuna oo ku habboon tlx kaasna waxaa u daynaysaa sida uu yahay serverka waxaa laga yaabaa aduu nambarkan ka duwan yahay nambarka adiga kugu qoran uu ka duwan yahay laakiin meeshan ayaa muhiimad ah halkaasa waxaa ka dhigaysaa mx baad ka dhigaysaa kadibna priority point 2 waxaa ku qoraysaa qoraalkan arkaynay soo ma jeedid waad ku qoraysaa meeshan meeshii priorityga kooda ahaydna waxaa ku qoraysaa halkan ku qoraysaa marka meeshan waxaa ku qoran tan baa ku qoran halkan waxaa lagu qoray 1 ama waxaa lagu qoray 5 ama 10 oo si isugu beegan yihiin mid walba markiisa ku beeranaysaa kadib waxaa leedahay add record baa leedahay marka soo saar tirahdid waxaa ku samaysmaya record cusub ama diiwaan cusub marka priority koowaad wuxuu sameeyey kana sameeyey soo ma jeed priorityga shanaad waxaa sameeyey kana sameeyey labadan waa kala duwan yihiin ma jeed halkana hal iyo halkana laba ah marka sidoo usoo koobiyarinaysa waxaana ka soo koobiyarisay bartan oo googleka ayaa ku siiyey oo shaashad buu ku saari lahaa haddii aan isfahmayn serverkaaga waa nidhi iyo googleka haddii aan isfahmayn buu ku saari lahaa shaashadana marka waxaa ka koobiyaraysanaysaa kadibna waxaa ku qoraysaa meeshan waxaan ku soo saaray marka dhamayso kuwaan ku soo baxaya waxaa jira server kaleeto oo kuu soo saari lahaa shaashadda noocaana shaashaddaasa marka waxaa ku qori lahayd rikoodhadii macnaa mid walba markiisa ku qori lahayd soo maartid marka kan waxaa loo qori lahaa 1 ama hal baa lagu qori lahaa recordka marka lagu qori lahaa meesha lagu koobiyaarin lahaa halka waxaa lagu qori lahaa 5 markaas waxaa lagu koobiyaarin lahaa calaamadii meesha ku qornaa recordka ahaa halka waxaa lagu qori lahaa 5 kale markaasaa lagu koobiyaarin lahaa halka waxaa lagu qori lahaa 10 markaasaa lagu koobiyaarin lahaa qaybta kaleeto marka wax u dhigmi lahayd sidaan u dhigmi lahayd marka kan halka iyo qaybtan isku meel kuma qorna waa kala duwan yahay laakiin serverada qaybtood isku meel bay ku qoran yihiin waxayna ku xiranta marka serverkaaga si aad u ogaatid marka haddii aad
labadaa nooc midna uusan ahayn waxaad la xiriirtaa martigeliyaha website-kaaga adigoo weydiinaya sidee recordka ama mxka aan update ama cusboonaysiin ugu sameeya. halkaa markaad soo gaartid waxaad ku guulaysatay inaad samaysid google-kaaga aad waafajisid emailkaaga website-ka. marka xaggee laga maamulaa? waxaa laga maamulaa google.com/a/website-kaaga ama toos baa waxaa u geli kartaa google.com ama googlemail.com baa ka geli. website-kan waxa weeyaan website laga hubiyo inaan waxaan samaynay ay si sax u shaqeeyaan. ma garatay? marka website-kaana gelayna waxaan fiirinayna marka inuu iswaafaqay labadii qaybood inay iswaafaqeen oo ahaa website-kaaga iyo gmailka. waxaan qornay mx toolbox kadibna waxaan ku qoraynaa meeshaan domainkii. domainkan muxuu ahaa? waxaa leedahay markaa mx lookup. waxaan reexnay meesha ku qoranta blacklist. waxaan isfiirinaynaa inuu guduud hadduu guduud ku jiro waxa weeyaan macnaha qayb baa blogaraysan weeye. haddii kalena waxa weeyaan waa sax wax walba. taas waxay ku muujinaysaa marka inay isla shaqaynayaan waayo waa cagaar okay buu ku wada qoray moogtahay inay isla shaqaynayaan website-kaaga emailkiisii oo google-ku ugu yahay martigeliye iyo gmailka inay isla shaqaynayaan. marka haddaan ka baxan kuwan oo dhan waxaan tegaynaa marka qaybta laga hago waan maxaa niri waxa weeyaan waa google.com/a/website-kaaga.com. ma garatay? marka emailkaaga ku qor maxaa niri email maxaa هذا markaad doonaysana emailkaagii hal email hadda kaliya leedahay moogtahay. markaad rabta inaad emailo kale ku dartid waxaad riixaysaa bartay ku qoran tahay organize users. bartanaad riixaysaa haddaad rabta inaad emailkaagii emailo kale oo dhowr ilaa 10 baa lagu ogolyahay freega moogtahay. marka bartaa riix. marka ugu horreysa aad isticmaashid waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo inaad caddaysid nambar saxa ku qordhay telefoonkaaga si uu kugu soo diro text uu caddeeyo inaad adigu leedahay accountiga. waa marka koowaad laakiin taasoo keliya. markaad riixdid organization ama users waxaad samayn kartaa markaas email cusub. bartana riixaysa waxaa leedahay create new user. waxaa ku qoraysaa magaca emailka qofka kadibna emailka ku qoraysaa meeshaan waxaa ku qoraysaa info create baa leh. markaas wuxuu ku samaynayaa markaa email oo website-kaagii ah soo maaratid. halka password baa ku qarsoon laakiin marka passwordkaas intaad muujisid waxa qofkii waxa u diraysaa markaas emailkan iyo passwordkii baa u diraysaa. haddii halkan riix passwordka ka soo baxaysa markaad dhamaysid waxaa leedahay done. haddaad rabto inaad masaxdid qofkii ama emailkiisa masaxdid waxaa leedahay bartan riixaysaa kadibna waxaa leedahay meeshaan ay ku qoran tahay more actions waxaa leedahay markaas delete the user ama rename haddaad rabtid waxaa la dhaho masaxda markaa qofkaas oo dhan masax emailkiisa waa masaxday kii hore waa masar kaliya ku soo haray. marka aan ka baxno markaas soo booqano saan email u dirno ku qor markaas emailkaagii webmaster emailka dhammaystiran waa ku qoraysaa meeshaan kadibna furahaagii emailkii diyaar buu ku yahay soo ma jeedid. waa google email oo gmail ama google email oo ku ah website-kaaga adiga ku ah soo maaragtid. emailka marka horeysa dir compose dheh waxaa ku qortaa adigu isu dir emailka soo maaragtid ugu soo dhacday maaragta emailkii. marka hadda website-kaaga wuxuu ku leeyahay email oo toos aad uga diri kartid gmailka oo hoostigeedu uu yahay ama martigeliyeedu yahay gmailka uu yahay. ma fahamtid? halkaas ayaan casharka maanta ku joojinaynaa. waxaa kala socotay aqoonkaal.com waxaan idiin soo tabinaya maxamed cali. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabillahi towfiiq.